ammaaniyo aadaa wanaag naga mudan macalin 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 adaa mugdigii u iftiishay aqoon adaa mugdigii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وأنا سلام يا أرضي إيجا والدين به واحد كسر دواتان سكول كاني إليس أو آذن أنا واه معلمة دينية معلم Macalin وحن نجان طلنا مانتا 10 كوس حبسن وحن نجان طلنا 10 كمية 10 فصل كشنات وليه مادة صومالية هذا 10 كمان نجان طلنا وحلا هذا مجلس بقراتي الرويلو وحن نجان طلنا بقرات الرويلو شكل دي أو هل كان يدو وضعنا إذا كم مرة طلنا وحن قضبة يرى أيام كسر سمية وساق بقابي waxaan doonayaa ardayda waxaan u sheegay ardayda class 5ka in buugoodi bay haystaan sheekada oo dhameystiran buugooda ay ka akhristaan intana markay inta yar qodobadan soo koobkabay markay akhristaana taasi waxay u saamaxaysaa in casharka si fiican wada fahmaan sidoo kale leeliskiina ay ka shaqeeyaan hadaba wax walba marka la bilaabayo ujeedooyin buu leeyahay iyo ahdaafta aan ka leenahay ama ujeedooyinka aan ka leenahay casharkeena waxa weeye waa labadan marka imka casharku inoo dhamaado idinku buugtina ka akhrisataan labada su'aalood arday walba waa isku dayaa inuu ka jawaabo su'aasha koowaad oo ah arweelo yay ahayd gabadhan arweelo leeyahay markeed hore gabadh sidee bay ahayd talabaadna waxay noqonaysaa sabab ma ayaa ay ragga u cadaadin jirtay hadaba labada su'aalood markaan casharka faahno ayaynu ka jawaabi doonaa jawaabteedina soo bixi doontaa aan iska bilaabno madaba casharkeena waxaan naanay arweelo waxay ahayd boqorad u talin jirtay dadka bulsho raacata ah ayaa ay madax u ahayd xukunkeeduna waxa uu ahaa mid kalitaris ah markaan leenahay kalitaris wax weeyaan waa qof aan jeclayn in ay cid kala qayb qaadato xukunka ama cidna aan la tashanin ee isagu sidoo doona ka yeelaya dadka uu talinayo hadaba boqorada arweelo bulshada ay xukumayso way kala qaadi jirtay intii rag ah ama wixii rag ah aad ay u cadaadin jirtay dumarkana waa ay u naxariisan jirtay sidaa darteed ayaa loo yiri xukunkeedu wuxuu ahaa kalitaris hadaba nin loo oran jiray oday biiqay ayaa ka badbaaday xukunkii arweelo ninkaasi uu ka baxsaday wuxuu galay kaymaha ninka kuma guulaysan gacanta inay ka dhigto waxa uu ahaa ninka kaliya ee ka badbaaday arweelo maalin ayaa ay arweelo xujo ku xidhay ragii nimankii iyada u shaqaynayay shaqaalada kamid ahaa ay maalin xujo ku xidhay xujadaas oo ahayd waxa ay ku tiri awr bilaa heeriye ah ayaa ku soo rara kariir marka halkan waxaanu ka fahmaynaa awrka marka la rarayo wixii la doonayo lagu raray waa in marka la saaray heeriyo waa in la saaray karbaash waa in la saaray wax la raado abjad markaas awrku wixii lagu raray ama guri ahaado ama dhaanaha ahaade oo si fiican kugu qaadaya laakiin awrkii oo qaawan oo aan waxba ku rarnayn waxba kuma qaadayo iyaduna waxa ku tiraaday awrta bilaa heeriyada ah ku tiraaday ku soo raray kariir iyo kelmadahan hoosta ka calaamadiyay kala la midaba xaga dama ugu tagi doona nimankii way yaabeen waxa ay arkeen in waxaan aan suurtagal ahayn waxaan islaan talow sideebay arintaas ay suurtagelaysaa nimankii markii xujada ay ku xidhay iyagu way garan waayeen aqalgoodii uu ka weynaatay waxay yiraahdeen sideeba awr bilaa heeriya kariir loogu rari karaa kariirtuna waa midho yaryar oo aan kaligood meel istaagi karin meesha dhigaba ka cararaya nimankii xujadii waxa ay ula tageen oday biiqana waxa uu ninka kale ku tirsan yihiin mar walba isaga xujooyinka ay ku soo xidho ka furfur jiray waxa uu ku yiri intaad awrta dhoobada balliga ku dhoobtaan kariirtana ku dhadhajiya ninkaasi waxa uu keenay fikrad fiican wuxuu ku yiri awrka marka dhoobada ku dhoobada marka awrka gebigiisa waa ku dhoobtaan dhoobada iyo qoyan kariirtii soo qaada ku dhadhajiya sidaas aad kaga badbaadisaan nimankii sidii bay sameeyeen arweelo dib ugu noqdeen arweelo markay aragtay aad ayaa ay u xanaaqday waxaanay iskugu dartay nimankii hanjabaad iyo cagajugleyn way la yaabtay waxa ku tahay warkan aqalkiina uu ka wan yahay xageebad ka keenteen iyaguna ma sheegin waa maalinta kaliya nimankii ay gumaysan jirtay ay ku sigteen inay sheegaan oday biiqay ay sirtiisa sheegaan laakiin way adkeeyeen ma sheegin waxayna kaga badbaadeen laakiin markii ay u sheegeen in ay awrto dhoobada balliga ku galgalimaysteen ayaa ay iska aamustay waxay ku leedaan anagu waxba maanaanu garanayn awrkiiba dhoobada ku galgalimaystay markii baanu kariida ku dhadhajinay bay dhahdeen sidaas ay kaga badbaadeen nimankii arweelo halka waxay nagu dhamaadeen casharkii arweelo laakiin ardayda waxaan mar labaad u sheegayaa kalimaha casharkii oo dhameystiran waa in yar soo koobay casharku isagoo faahfaahsan wuxuu ku yaalaa buugiina marka halkaas si fiican u akhrista intan waxa ay tahay erayada cusba waa kuwii markii hore hoostaan ka soo calaamadiyay halka baan noogu sharaxi doonaa erayada cusub waxa kamid ah bulsho raacata ah bulsho raacata waxa looga jeedaa dad xoolo dhaqata ah waa dad xoolo dhaqada xoolahooda ku tirsan xoolahaas raacaan saas loo dhig bulsho raacata ah kelmadda labaad waxay noqonaysaa kariirtuna waa midho yaryar oo fataatiirta u eg waa midho yaryar oo geedaha ka baxa inkastoo miyiga ka baxaan inta badan waxa ay eegayeen fataatiiraha kelmadda kale cagajugleyn macnaheedu waxa weeyaan hanjabaad
iyo waliba qofkii oo aad baqdin geliso ayaa la dhahdaa cagajugleen hadan mar labaad aan dusha ka soo yara maro maanta casharkeenu wuxuu ku saabsanaa boqoradii Araweelo casharkeedii boqoradii Araweelo waxay horta labada su'aalood aan ka jawaabno labada su'aalood leena weydiiyay waxay ahaayeen Araweelo ayay ahayd hadan su'aasha hore ka jawaabno waxa weeyaan Araweelo waxay ahayd gabadh dadka u tirin jirtay taasoo xukunkeedu ku salaysnaa hab kali talasnimo ama dictator waxa ay niraahno sababta ragga ay u cadaadin jirteen waxa weeye maadaama iyadoo ay ahayd dumar ama gabadh ay ahayd waxay doonaysaa in dumarku mar walba ragga ay ka sareeyaan saadarteed ragga ay iska cadaadin jirtay oo ay iyaga cadaadin jirtay iyaga ay saar jirtay culays xagan waxaynu ka soo aragnay inay jireen Araweelo dad ragga ay gumaysato oo u shaqayn jiray raggaasi mar walba wixii iyadoo ay u dirto ay soo qaban jireen ama hagataan ama hagaran waayaane waxa kale oo badan ka arknaa inuu jiray nin oran jiray oday biiqay ninkaasi waxa uu ahaa ninka mar walba xujooyinka Araweelo furfura waxa kale oo bartan haddana soo hordul marayadana halkan waxay noogu taala in nimankii markay ku tiraaday ordo kariirta qaado awrta ku soo rara ay nimankii ugu tageen ninkii loo jiray oday biiqayna uu xujadii ka furfuray isagoo ku leeyahay dhoobada wabiga inta ku dheertisaan awrka kadibna kariirta ku rara sidii markay sameeyeen Araweelo waxay garatay in aanu kan fikirkooda aan u ahayn way ku xanaaqday way u hanjabtay waxa ku tiri yaa idin sheegay fikradan iyaguna way iscadkeeyeen ma sheegin waxay ku soo gaabsadeen ku leeyahay awrtu iyaga baliga ku galgalimaystay sidaasay ay kariirtu ugu dhagdhagteen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka waxaan ugu dhamaaday maadadayna Soomaaliga fasalka shanaad oo ku saabsanaa maanta casharka la horinayay Araweelo mar labaad ayaan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allahu adiga kuaminayo awood saraysa waataade illa xariisa dabow lahu illa xariisa